السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وجنال كينا خالي ميديا maanta waxaan ka hadlaynaa taliya shub oo maasha Allah shir jaraa'id qabtay asagoo ka hadlaya askarigii ku geeriyooday weerarkii guraacan ee lagu qaaday maqaayadii Top Cafe halkaas ay ku geeriyoodeen dad fara badan adiga ilaa lagu qiyaas 5 iyo wax ka badan halka kaga dhaawacmeen tiro intaas ka badan waxaan ka rajaynaa wixii dhaawacna inuu Ilaahay boogtooda dhayo inta dhimatana Ilaahay inuu naxariisto ayaan Allah ku baryana inta kadib taliyaha arin fiican ayuu sameeyay wuxuu ka hadlay abaalmarinta iyo muxuu ahaa maamuuska sumcadda oo leeyahay askariga halka geesinimada ugu geeriyooday asaga oo ka hortagaya nimanka falguraac weerarka soo qaaday ee burcadka ahaa ee farka xun ee guraacan ee sameeyay inay furaha gacanta ku dhigaan sida darteedana maxaabiista ee dambiilayaasha hasiidayaan iyo sidoo kale in ay albaabka iska furaan ee waxay doonaan ee markaas sameeyaan marka sida darteeda taliyahana wuxuu sheegay in uu abaalmarinayo oo nataalo dhisay waana fikir fiican qof walba waxa laga doonayaa oo kamid ah muwaadin ah dhibaato kasta oo taagan uu arkaa inuu carabaabo oo isku daya inuu wax oo ka qabto haduusan kareen xataa inuu afka ka hadlo maanta hadaladii faraha badan ee saxafiyiinta hadleen ayaa waxay sababtay in maanta askarigan lagu abaalmariyo dhibaato kasta ay jirto dalka dhacaysana saas oo kale waxa la doonayaa in laga hortago ee laga bixiyo faalo taas oo shacabkana waxay gelin u sameynaysaa sidoo kale dawladana meesha ka qaldan iskaga saxayso aad iyo aad ay u mahadsantihiin daawadayaal imankana aan dhageysano taliya shub arintiisa ama hadalku ka hadlay askarta meesha ku dhimatay qaar aan saaka taallo u dhisaynaa jira ninkii furaha hayoo la dilay yaa maxaa lagu dilay yaa furihii bannaanka u tuuray asnax badaa lagu dhajiyo waa dhintay kaas ma u malaynaysaan inuu xareeyey wixii nagula dilaayo meeshaan lala galay ma u malaynaysaan saaka taalladiisaan dhagax dhigaynaa taallaa loo dhisaa isagoo dhintay yaan dallacsiinayna isagoo dhintaan dallacsiinayna taasna waa ogaanaysaa marka ninkaas naftiisu dalka u huray hadduusan furaha tuureen oo furaha iska dhiibi laha in waqtigiisaa galay in la badbaadiyo macnaha way iska imaan lahayd laakiin waqtigiisaa galay oo ma dhaafeen meesha hadda waxaan u istaagaynaa meeshii ninkaas taallada aan uga dhigsi lahayn yaan u istaagaynaa waa dhagax dhigaynaa maantana waa la dhisaa